Hey, asalaamu nabada xaris korinaato asaadiq wadani iyo asxaabtiisa oo maanta jecel inay xagga kan ay idinka soo jeediyaan cashar ku saabsan sidee lacag looga sameeya Amazon 2023. Wahagaag waxaan rabnaa inaan marka ugu horreysaba aan qofka ku gudaabino in uu noqdo self employee ama qof ka madax bannaan in uu qof u shaqeeyo 2024 iyadoo lagu jiro aan 2024 la gelay waxaa aad iyo aad u xumaan inaad u shaqayso qof kale adoo North America iyo Europe iyo wadamada la halmaala jooga. Tusaale haddaan ku dhahno si aad uga xorowdo taas waxaa muhiim ah inaad haysato saddexdan shay ugu muhiimsan. Okay? Number 1 waa inaad furataa waxa loo yaqaano seller account, Amazon seller account. Okay? Amazon seller account waxaan ula jeednaa Amazon seller account marka aad inaad furato waxa ay kala leedahay laba nooc, ama individual ama qof caadi ah inaad u furato ama inaad u furato business. Okay, marka aad sign up samayso waxa uu ku weydiinaa ma individual baa tahay ama ma waxaad noqonaysaa qof business ah. adaa yaqaana dowga aad qaadanayso labadaas midkood. haddii ay noqoto inaad qaadato dowga individualka waxaa lagu weydiin doonaa magacaaga iyo adresskaaga iyo bangigaaga personalka iyo ID-gaaga ama baasaboorkaaga. macluumaadyadas waxaan jecelnahay inaan video gooni aan uga hadalno ama ciddii u baahan inayn la soo xiriirto si aan uga caabino. haddii ay noqoto inaad business noqoto iyadana waa same, magacaaga waxaa lagu weydiin doonaa business shatiga businesskaaga ama certificateka businesskaaga iyo bangi account businesskaaga iyo waxyaabo kale oo la halmaala ay u baahan yihiin inay kugu taxqiijiyaan qofka aad tahay oo ganacsiga asiga Amazon raba inuu ka sameeyo. marka intaas dhan samayso Amazon waxay ku soo diri doontaa email ay ku leedahay hey saaxiib soo dhawow waa ku aqbalnay inaad Amazon seller account si aad ka samaysato aad wax ku iibiso. marka aad darajada gaarto haddaad u baahan tahay caawinaad weli waana la soo xiriiri kartaa adigoo tegaya ama TikTok-ga dhinaciisa kore inaad ku dhufato bio-gan inaad tagto ama haddaad YouTube naga daawanayso inaad ku dhufato Linktree meesha ay ku qoran tahay Wadani Group. marka aad ku dhufato waxaa kuu soo bixi macluumaadyadan ayagaa la halmaala. marka ay kuu soo baxaan haddaad u baahan tahay inaad YouTube-ka naga daawato ama TikTok-ka naga daawato ama aad ballan qabsato xaggan waxaa ku qoran ballan qabso 1-on-1 toos annagaa noola hadasho. Okay, waa wada hadlaynaa. waxaan kuu sahli doonaa dariiqa uga fudud aad maskaxdaada ku xoreyn karto 2024 adoo raba inaad online-ka lacag ka samayso. Okay, maaha only Amazon kaliya waxa aan samayn doono. markaad meeshaad joogto cafan waxaad samaynaysaa waxaad ku dhufanaysaa ballan qabso 1-on-1. markaad ku dhufato wuxuu ku keeni doonaa page-kan asiga ah Google Calendar-ka. xaggan waxaa ku qoran Wadani courses, Wadani training courses 2 hour. xaggan waxaa ku qoran 1 hour $1 ku qoran, which is waa inaan xagga gelina si aan page-kan u samayno. intaan dhan waa furan yihiin. waxaan maraynayaa bishan dadka fasaxaya inta badan ku maqan yihiin, laakiin intaan dhan waa furan yihiin. maalin ka qabso, time ka qabso, markaas kadib annaga macluumaadka noo soo dhaco waxay noqonaysaa inaan kula soo xiriirno aan WhatsApp-ka ama groupkeenna aan kugu darno. waxaan ku bari doonaa qof walba meesha uu rabo aadi doona. haddaad u baahan tahay Amazon, haddaad u baahan tahay eBay sida dropshipping loogu sameeyo, Shopify iyo Alibaba sidoo alaabaha looga dalbo. intaasoo dhan ayaan insha Allah tacaala ku bari doonaa. 10 qofood ugu horeysa hore u ballan qaadnay waa free, laakiin su-aasha meesha taalla waxaa ah dadka Europe iyo UK jooga, dadka Europe iyo North America jooga ayaga waxaan jeclaa inaan si gooni u wada hadalno maadaama fursaddan ayaga aad iyo aad ay ugu dhowdahay. dadka jooga Africa iyo Far Asia waa inay samaystaan marka ugu horeysa Payoneer account si ay lacagahooda iyo lacagaha kale meelahan ay ugu kala gooshaan. Okay, haddii kale aad bay u adag tahay. oon ahayn waa inay yaqaanaan qof eelkooda degan North America ama degan Europe si ay account ugu sameeyo si ayaga uga shaqaystaan. marka intaas samayso waxaad kaloo muqadas ah oo lagaaga baahan yahay maalmaha ugu horeysa annaga ku adkaynayno in aad soo iibsato waxa loo yaqaano seller apps. Okay, seller app waa software kuu sahlaysa inaad kuu fududaynaysa, waa tools. Okay, kuu fududaynaysa alaabta intii bishii la iibsado. waxaa kale ay kuu fududaynaysaa alaabtan inta la iibiyo iyo sida lagu helo. Okay, tusaalahooda waa idin doonaa. waxaa kaloo muqadas ah iyadana loo baahan yahay si aad ganacsigan uga miro dhaliso inaad haysato waxa loo yaqaano Keepa. Okay, Keepa dadan xaggana kuma aragno, laakiin
haddaan ku dari doonaa waa inaad haysataa Keepa. Okay, let me see. Keepa waa software, data software, waa data software kuu sahlaysa inaad ii sheeg aad meelahan aad ogaato inta qofood iibinaysa shayga waxa uu yahay iyo waxa limid ah. Okay, si aad taas u ogaato waa inaad heshaa waxa loo yaqaano Keepa markaad samaysatid, Keepa markaad iibsato, it's gonna cost startup-kaaga wuxuu noqon doonaa ilaa ugu yaraan 500 meelahaas. Keepa waa inaad haysataa, laakiin maalmaha ugu horeeya, bilaha ugu horeeya annagaa macluumaadyada dhan ku siin doona insha allahu tacaala. Ma u baahnid inaad iibsato Keepa iyo wax la halmaala. Okay, iyo seller amp. Waagaag waxaan rabnaa in aan ku bilaawno productigan ugu horeeya. Productigan xagga waxa idinkaga muuqda. Waxaan rabnaa seller ampka iyo Keepaha inaan sharaxo. Marka aad samaysato waxa loo yaqaano Seller Center Amazon, waxa aad alaab geliso ama alaab raadinaysid oo aad iibsato seller app iyo Keepa. Seller app waa kan xagga ka soo bixi, wuxuu idiin sheegaya, wuxuu kuu cadeynayaa alaabtan inta la iibiyo, percentage-ka ana PSR waxa la yiraahdaa best seller ranking sellerka intuu marayo, alaabta inta aad ku soo gadan kartid, minimum cost ee kugu fadhiso iyo alaabtan inta la iibinayo. So PSR ka dib aan ugu noqon doonaa iyo inta qofood alaabtan iibinaysa xaggan ayaad ka arkaysaa iyagana. That's why software-kan aad muhiim u tahay. Okay, Keepa ku soo hartay. Keepana waa tan xagga chartigan xag ku qoran oo datada waxay ku kala cadeynaysaa sida alaabtan ay u kala shaqeynayso. Okay, qofka waqtiga la iibiyay, alaabtan waqtiga hoos u dhacday, waxaana arkaysa dan waa nambaro u baahan fahankeeda iyaga. Okay, ayagana marka aad ii sheeg balanta samaysato ayaan tartiib one by one idinku sharxi doonaa. Okay, so alaabtan maadaama hadda la iibinayo xaggan ku qoran tahay $50, waagaag waa ku soo noqonay. Waxaan xagga ka aragnaa alaabtan Vienna la yiraahdo, Baby Smooth Vienna Moisture, in la iibinayo $19. Amazon waxaan ku aragnay alaabtan in la iibinayo $50. Okay, so arki kartaa farqiga u dhaxeeya $19 marka alaabtan la iibinayo $19 marka la iibinayo, $27.50 la iibin jiray, 19 marka la iibinayo. Marka aad xaggan timaado 19 alaabta marka la iibinayo, annaga tusaale ahaan waxaan iska gelinay macal taxi waxa marka laga saaro $21. Okay, $21 alaabtan markaan ku soo iibisid, faa'iidadaadu waxay noqon doontaa $14. Okay, $14 ayaad faa'iidi doontaa alaabtan iyada. Okay, waxa iibinayana waa 5 qofood oo FPM ah. Okay, FPM means fulfillment by Amazon, fulfillment by merchant, qofka gurigiisa ka diray. haddii aad adiga FB ahaan u dirto number 1 aad noqonaya, alaabtan waxaad faa'iideysaa $14 alaabta qofka ugu yar. Okay, so seen ku ogaana alaabtan in oo $50 la iibinayo oo la iibinayo $50. haddaad tagto meesha loo yaqaano seller app, alaabtan waxaa la iibinaya. haddaad tagto Keepa waxaa la iibinaya $50, qofka ugu dambeeya $50 uu iibinaya. waxaana iibinaya imise qofood 5 people. saaca hoose ka aragtaan new offer count 5 people. Okay, xaggan waxaa iibinaya 5 people. sidaa laaligeeda alaabahan ayagaa muhiim u yihiin. Okay, haddaad u baahantihiin casharo dheeraada waad nala soo xiriiri kartaan. annaga dadka runtaan taabsiinaa, tinka balshay ah waa taabsiinaynaa meesha siday wax u kala shaqeeyaan, maayna iskama hadalno. waagaag kuwan waa iska xiraynaa. waxaan rabnaa waxa inaan idin tusiyo alaab kale oo lead haddadaan aan helnay. alaabtan iyada waa lead, waa way cusub tahay, fresh waay. Okay, shayga markuu freshkiya waxaa la dhahaa lead. Okay, waagaag alaabtan iyada waxaad ku aragtaan $44.99. all right, alaabtan waxaa la dhahaa The Show 23 PS4 PS5, waxyaabahan dhan iska eg waxyaabahan oo dhan Miami. waa game la ciyaaro oo baseballka ah. waxaa la iibinayaa $44.99. $44.99 la iibinayaa. $44.99 marka la iibsho waxaa xagga ku aragtaan bishii waxaa la drop gareeyaa alaabtan 87 pieces ay drop gareysaa. Does it have variation ma laha. So Keepa waxaa ka garanaysaa alaabtan haddadan in la iibinayo $44.99 sida meesha idinkaga muuqato $44.99. Okay, waxaa iibinaya dad badanaa iibinaya. waxaa iibinaya ugu badnaan 90 people, 90 qofood. alaabtan waa laisugu tagay because faa'iidadeeda high ah. marka aad meeshan joogto seller appna waxa uu iibinaya alaabtan iyada
seller appkan waxaa ka arkaysaa 39,1234 pieces aa la iibinaya alaabtan. Okay, markaad 22 kusoo heshiidna $4.28 ayaa kugu jirtaa. See looga soo helaa? Google ayaa ku dhufanaysaa. seller appka muhiimadiisa aan ku sheegay. Google markaa ku dhufato waxa uu ku geyn doonaa bartan loo yaqaano Google. alaabtii aan soo helnay, alaabtii waa tana buy games meel la dhahay lagu iibinaya, waxaa la iibinaya $21.56. Okay, easy, same was commit marktaas isugu mid yihiin $21.56, same thing. Okay, wax ay ku kala duwan yihiin ilaha abuurti male. So waxaa samaynaysaa xaggana ka soo qaadaysaa, waxa aad soo gelin doontaa xagga kan, waxaad ka faa'iidi doontaa $4.28. Is that something real, man? So waxyaabaha ugu fudud uu qofka bini aadanka samayn karo 2024 waxaad u baahan tahay in aad haysato ama aad samaysato waxa loo yaqaano seller app iyo keeper iyo seller account for Amazon. Simple is that. saddexdaas shay marka aad hesho, fadlan xaggan imaaw haddaa YouTube-ka naga daawanaysid, click link 3 markaad ku dhufato waxaa kuu soo bixi ballamahan xaggan hoose, ballanta ayaad qabsanaysaa, nala soo xiriir. waxay noqonaysaa inta dhiman inaan ku dhamaystirno, aan ku gaarsiino hadafkaagii ahaa ugu yaraan $6,000 bishii, 6 figure a month. ma aha inaad warehouse keliya ka shaqayso, ma aha maalin walba inaad cararto aad qof u shaqayso, waa inay maskaxda shaqaysaa. waa Saadiq Wadani iyo tiimkiisu idinla. hey walaalayaal, maalinta idin wacnaato, aqligana idin shaqeeya.